الله هدي أي دتك وهشدان دتك ذا الدنيا جعليهين أديك وهشوا الله قلبك وحنون صدا أو بكرة سدا أو بكرة أو كلا جركا عافمات كيسونا وحو كجرا توبة يا الله النغشدا قلبك وأقاوناذا سدا جركبا أقاوناذو قروحدي السنة يدركي سنة الله كعبسيغا قلبك سدا كلا وقاجودا ونا أوما سدا جركبا وقاجودا ونا أومو cuntada iyo cabitaanka qalbiguna waa aqoonta macrifada iyo alla tala saarashada alla dartii oo wax loo jeclaado iyo ilaahay in loo noqdo subhanahu wa ta'ala qofka naftiisa garta wuxuu ku mashquulaa hagaajinteeda isagoo uga mashquula ceebaha dadka kale waqtiga oo la dayaco waxay ka daran tahay geerida maxaa yeelay waqtiga la dayaco Allah subhanahu wa ta'ala ay ka jaraysaa iyo daarta aakhiro موتكنا wuxuu ka jarayaa oo kaliya adduunyada iyo ehelkeeda inaad shay uga tagto qaab qurxoon waa inaad ka tagtaa dhib la'aan cafinta qurxoonna waxa weeyaan inaad wax iska cafido adiga oon cataabin calaacal nageysan sabarka qurxoonna waa inaad wax ku sabirtaa adiga oon sheegan qofkii ku camal fala wixii uu cilmi iyo aqoon u leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhaxal siiyaa ogaanshaha iyo cilmiga shay uusan ogaansho iyo cilmi u lahayn waxaan eegay oo aan raadiyay duco midda ugu nafci badan sawaaba su'aasha Allah la weydiisanayo kaalmaha raali ahaanshadiisa markaa baan ku arkay suuratul faatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin qof laguma ibtaleeyo cuquubo ka weyn qalbi adeeg iyo ka fogaanshaha Allah naartaba waxaa loo abuuray si loogu dalaaliyo qalbiyada adag sabarku isdhiibid maaha u kaadsashaduna dibdhac maaha aamusnaantuna tanaasul maaha noloshu waa xanuun uu qarinayo yadadiilo uu xaqiijinayo camal ku dhamaanaya ajal kadibna lagu abaalmarin doono qof waliba wuxuu sameeyay ku kalsoonow in codka degani ka xoog badan yahay qeylada tifaftirnaantu iyo haadhaad la'aantuna waxay burburinaysaa ihaanada tawaaduca iyo hoos isku dhiguna wuxuu burburiyaa kedada ixtiraamkana wax tusaale ah oo loo dhiga ma leh quruxda caqligu waa fikirka quruxda carabkuna waa aamusnaanta quruxda xaaladda aad ku sugan tahayna waa toosnaasho quruxda hadalkana waa runta ilaali oo dhowr qofka aad jeceshahay canaano haddii aad doonayso muhiimadda si dhammaan arrimihiisa jacaylku waa dareen intuusan eray noqon ka hor doqonnimadu waa nuqsaan qofka ku jirta mararka qaar in lees doqomaysiiyana waa kamaal iyo dhamaystirnaan mooganaantu waa dayac qofka ku dhaca ismooganaysiintuna mararka qaar waa xigmad ha u ogolaanin qofna inuu yareysto waxa ku saabsan riyadaada erayadaada iyo dadiiladaada iimaankaaga noloshaada wax waliba oo ku quseeya ka yeel arrimo waaweyn oo aan la yasi karin quudkaaga iyo waxaad cunto ha uga hor sheekaynin qof daciif ah sacaadadaada iyo liibaantaadana ha uga hor sheekaynin qof murugsan maalkaaga ha uga hor sheekaynin qof faqiir ah miisaan hadalkaaga ilaali dareemayaasha dadka kale ahawna mid ku raaliya waxa uu haysto ka fogow malaha xun maxaa yeelay dhib ayuu keenaa shakiga markastaana ka fogow maxaa yeelay waxbuu duminayaa isbarbardhigana ka fogow maxaa yeelay waxbay dulminaysaa ammaanta lagu tarax tagayana iska ilaali maxaa yeelay beena lagu sheegaa ma jirto raaxo ka weyn inaad iska dhaafto qofku niyad jabiyey amaad iska cafiso midku xumeeyey amaad kaalmayso mid kuu baahan adigoon bedelna ka qaadan ama aad iska hilmaamto murugooyinkaaga maxaa yeelay waxaad rumaysan tahay in ay berri wanaagsan tahay dahirnaanta qalbigu ceeb maaha ismooganaysiintuna dabaalnimo maaha cafintu dacfi maaha aamusnaantu afgaroocnimo maaha waa tarabiyo iyo cibaado nicmadu waxay u baahan tahay ka shukrin beledu waxay u baahan tahay ku sabrid dembigu wuxuu u baahan yahay ilaahay in dembi dhaaf la weydiisto
qofkii shukriya sabra allah dambi dhaaf weydiista guusha iyo sacaadada wuu gaaray rabbi aniga iyo adiga iyo dhammaan muslimiintaba ha u dambi dhaafee isku day inaad walaalaha gaarsiido fariintan mahadsanid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي